waana gabadha kaalinta ka gashay dugsiga sare fooman B dugsiga sare oo dhan markii la isku duuduubay kaalinta koowaad u gashay sidaa daraaddeed sanadka inta ka dhiman lacag laga qaadi maayo haddii Allah uu dala ogolaado aabaheedna waa kan jaayisadeedii xasan geesay halkan oo ah xarunta iskuulka Imaam Maalig ee magaalada Cadaado waxaa ka socota munaasabadda daafurka sanad dugsiyeedka 2022 ee iskuulka maamulka degmada Cadaado waalidiin iyo bahda waxbarashada ayaa ka qayb galay munaasabadan ugu horeyn macallimiinta iskuulka iyo qaar ka mid ah waalidiinta ayaa ardayda kelmado baraarujin halkan kaga jeediyay wax la koobi karo aysan ahayn qiimaheeda iyo sharafkeeda waxaan rabaa hal dardaaran oo xataa mundu saxaabadii rasuulku ay ubadkooda iyo dadka ehelkooda kula dardaarmi jireen ee ku saabsan tacliinta inaan ku dardaaranno arrintaas waxay tahay waxbarashadu waa makaarim iyo sharaf makaarimta iyo sharaftu waxa ay tahay dardaarankeeda asagoo ka dardaarmaya Saciid ibn al-Caas saxaabiga la yiraahdo ubadkiisii buu la dardaarmay marabkaas buu wuxuu yiri yaa baniya innal makaarima law kaanat sahlatan yasiratan lasabaqakum ilayha al-aan ubadkaygiyo waxbarta maxaa yeelay waxbarashadu waa karaamooyinka iyo makaarimtu haddii ay noqon lahaayeen kuwo fudayd ah waxaa idinkaga hormari lahaa dadka liiliita ardaygu waa kan marka uu jidka marayo aqoontiisa laga dheehan karo waa kan marka uu dadka la dhaqmayo dabeecadihiisa siduu ula dhaqmayo dadkaasi laga tusaale qaadan karo waa kan marka uu rabo inuu dad wax u sheego hadalkiisa lagala dhex bixi karo aqoonta runtii waxaan rabaa inaan ardayda aan mar labaad iyo mar saddexaadba aan kula dardaarmo markaad wax baranayso micnaheedu waxay tahay yool baad hiigsanaysaa laakiin haddii aadan lahayn hadaf ama ujeeddo aad wax u baranayso micnaheedu waxay ka dhigan tahay in aad tahay qof meel uu ka yimid iyo meel u socdotoon aan garanaynin waxaanu soo dhawaynaynaa maamulka iyo macallimiinta iskuulka Imaam Maalig sida ay wax u wadaan shaqada ay wadaan qaabka ilmaha wax u barayaan waxaan leenahay waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan kaleeto soo dhawaynaynaa qodobada la soo qoray oo waraaqda aan ka akhrinay oo laga soo fakeray oo laga soo fiirsaday waanu soo dhawaynaynaa waana qaadanaynaa in lagu dhaqmana waa rabnaa insha Allah tacaala qaar ka mid ah ardayda dhigata fasalada kala duwan ee iskuulka ayaa soo bandhigay mowduucyo la xiriira ahmiyadda waxbarashada qaarkoodna baraarujin ay ahaayeen of education in life. First of all, education teaches the ability to read and writing. Reading and writing is the first step in education. Most information is done by writing. Hence, the lack of writing skills means missing out on a lot of information. Consequently, education makes people literate. بكم جميع الضيوف الكرام الذين حضروا هذا الحفلة من إدارة معلمين والطلاب والضيوف الآخرين وأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك أريد أن أثنى على مدرستنا المرموقة التي لا يمكن مبالغة فيها. نأمل أن تستمر هذا المدرسة في الازدهار في جميع أنحاء العالم. halkan maanta joogiyo heerkan ku suganahay qofkii ii horseedee mudantii haweenkiyo aan ku jaqay haraadkee dhabta iigu haysay ruuxan hadaaqiyo ku bilaabay hadalkee nolosha ii hergelisay barihii habdhaqankiyo dusha iigu heestaay jeclayd horumarkayga huqda iigu dhowri jirtaay hindasanaha garaadkiyo hanka igu abuurtay ifka guul ku noolow
aakhirana halkiiroon hooyo macaan dharaarba warbaysidaa dhabbaal weeyaan wakhtigu rajadu guushay dhashaa caqligu waa dhaamiyaa dhaqaaluhu waa cilmiga markaan dhanka wacan ka dayo dhaliishu waxbay saxdaa erayna waxaa loo dhigtaa dhankiisa wanaaggalee haddaad tahay ruux dhibsada wuxuu dhahay ruux dhahaa dhagtiyo afku ha ismaqlaan adkaysi haddaad u dhalan afeeftaa lagu dhaqmaa dhankaa waxaan uga socdaa adnigu waa dhowaan arag dhayaha ka wada simane runbaa qowl lagu dhidbaa been baan weligeed lib dhalin sheekh xasan maxamed geedi maamulaha iskuulka imaamaaliga ayaa sheegay in ahmiyaddoodu ay tahay soo saarista jiil waxbartay dalka iyo deegaankana anfaca sidaad ku aragteen warqadaha aad haysatiin insha allahu tacaala oo laydiin qaybiyey iskuulka waxaa loo dejiya nidaam awalba isagoo nidaam lahaa ayaa haddana nidaamkiisii nidaam kale lagu sii daray si uu qurxoonaado faraska waxaa la yidhahdaa waxaa jeedalka loogu dhuftaa orodka ha sii badiyo inaan orodka badinaan rabnaa insha allahu tacaala saaad arkaydiin telefoonka screen touchka la yidhaahdo ama smartphoneka la yidhaahdo ama telefoonkan shaashadda leh waxa loo yaqaano laga bilaabo maalinta sabtida allah awoodda leh hadduu oggolaado iskuulka waa ka mamnuuc qof allaale iyo qofkii soo qaata wiil ama gabar ha ahaado kollaytaba waa arkaydin warqadaha idiin qaybiyey marka koowaad bilaa laga xiraayaa marka labaadna bilaa 2 bilooda laga xiraayaa marka saddexaadna ilaa iskuulka uu ka dhammaado la sii maayo sanad dugsiyeedku uu dhammaado waalid ka daba imaan kara male oo telefoonkaas u soo ergey kara telefoonkaas wuxuu qarribay wax allaale iyo wixii ardada lagu shubaayay ayuu ka shubayaa habeenkii waxaad arkaydaa arday inta ku soo dhafray galaaska markuu yimaado hurdo bilaabay waxyaalaha la ii sheegay waxaa ka mid ah xataa guriga haddii adag iyo habartu damcaan inay xoogaa yidhahdaan waryaa seexo inuu albaabka inta wax ku tiirsado marka habartu soo riixdo ama adagu soo riixo uu marada gab isku siinayo bustaha mar allaaliya markuu noqdana oo horey ka noqonayo hawshiisii uu wadanayo waagana ugu baryaayo telefoonkaas insha allahu tacaala marka asaga bataatanba waa xirnay in waalidku sidaas u qaataa la rabaa nala qaato qofkii telefoonkiisa aan qabanno gabdhaha gabaraan u keeni doonaa murabbiyadoo ka soo saarayda wiilashan annakaa u joogna jeebka ha ugu jiro meel ha u yaallo marba hadduu iskuulka albaabkiisa ka soo galo telefoonkaasi waa ku daayey bilaa ugu yar 2 bilooda ku xigta sanadka ugu dambeeya insha allahu tacaala aad iyo aad telefoonkaas ardada wixii lagu shubay waa ka shubay waana dhibay runtii markaa runta rabtiin waxaa la arkay iyadoo xisadii lagu jiro oo haddana qofkii uu qadka ku jiro internetka uu ku jiro adaaba sheegaya hawo kale uu ku jiro iyo adduun kale uu qofkaas uu taagan yahay xuseen cali sahal gudoomiyaha waxbarashada ee degmada Cadaado iyo sidoo kale nuur yarow xayle shaarba cadde gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado ayaa gabagabadii munaasabadda hadal ka jeediyay waxaan dugsiga Imaalig iyo ardayda iyo macallimiinta kaga mahad celinaynaa in ay munaasabad ay ku soo bandhigayaan waxqabadkoodii sanadkan ay nagu qabtaan galabta halkan runtii Imaalig wuxuu ka mid yahay iskuulaadka ay degmada ku xisaabtanto hadduusan kaalinta koowaadba ka ahayn sanadkanna waxaa iskuulka la siiyey abaalmarin ku saabsanayd arday badnaanta marka laga hadlaayo degmada Cadaado iskuulka ugu ardayda badan oo ahaa tirada ardayda dugsiga sare ka qalin jabiday waxay ahaayeen 75 sidoo kale dugsiga dhexana waxay ahaayeen 85 ardayda dugsiga ka dhigata markii total ahaan la isku geeyo maamulku wuxuu nagu soo wargeliyay oo ka haynaa 680 arday inay dugsiga dhigtaan sidaa darteed iskuulku wuxuu noqday iskuulka ugu ardayda badan degmada Cadaado waxaan kala rajaynaynaa waalidka naga maqan oo ilmahooda kula yacan banaanka ayagana inay taxadar dheeriya sameeyaan haddii ay duruufo jirtana maamulka iyo iskuulaadka maamulkooda degmada iyo dhammaan si loo kaalmeeyo cidna aysan duur naga jirin maanta heer waxaan taagannahay lagu wada afaano waxbarashadii dalka wuu fiicnaan doonaa insha Allah hadduu hal raali ka dhigo wuxuu geli doonaa barwaaqo soorna geli doonaa qof aan aqoon lahayn waxaa huraya in mataqaanaa dhagax uu xamaalo qori qaato meel fariisto ayada soo hurarto ogaada laakiin maanta waxaad gaari doontaa insha Allah hadduu hal raali ka dhigo nin farsamo barta nin caafimaad barta nin tiknoolajiyad kala barta waxyaabo badan aan gaari doonaa ugu dambeyn halkan ayaa abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey in ka badan 12 arday oo kaalmaha ugu horeeya ka galay fasallada uu iskuulku ka kooban yahay